Xalqadan oo qaaska ah maanta waxaan ugu talagalay walaashayda Zamzam oo geeri xanuun badan soo gashay oo ka sakhiiray wiilkeeda 10 jir 9 jir ah oo ka sakhiiray Allah u naxariisto jannadana ma loo baryaayo laano waa sakhiir waxaan leeyahay walaashayda Zamzam ilaahay sabar iyo iimaan Allah ka siiyo bedelkiisana wax khayr qabo Allah kugu bedelo booskiisa geeridu waa xaq adduunkan koonkiisa qofka harayo ma jirto kulligeena meeshaan u soconaa waa kala horeynaa waa kala dambeynaa maanta haddaa adiga baxdo beri anaa baxay waa saas geeridu waa xaq qadar Allahu maa shaa facal marka walaashayda Zamzam waxaan Allah kaaga baryaa inuu Allah yusabarak ويعطيك قوة البدن وقوة الجسم wax kale maanta lagu qaban karo ay duco ka ahayn adiga duca maanta u baahan tahay laano geerida qof walba way soo maraysaa waa wax xaq ah cunug hadda dhashtiya iska dhimanayo cunug oo 10 jir ah iska dhimanayo qof oo qaangaar ah iska dhimanayo laqana iska dhimanayo marka qof oo geeri ka badbaadayo ma jirto waa geerida xaq marka waxaa loo kala duwan yahay sabar iyo adkaysi ilaah subxaanahu wa ta'aalana wuxuu saan u yeelayaa ya wax aad jeceshahay Allah kugu itixaamaya waxaa la fiirinaa sabarkaaga iimaankaaga intoo la eg yahay ma ku qanacsan tahay inuu ilaahay wax kasta kugu sameyn karo awood ilaahay in lagu qanacsan yahay iyo awood ilaahay wuxuu ugu jeceshay oo ka qaato in aad ku sabrays iyo in kale in lagu caasinayo iyo in kale ma ilaahay saas u yeelaya wax walbana Allah subxaanahu wa ta'aala oo sameeyane waxa ku jiro macna ku jirto waxa laga yaabaa inuu khayr ku ahayn ilaah baa u ka anaga ma ogna inuu khayr ku ahayn oo ilaahay mid ka khayr badan ilaahay kugu bedelo Allah subxaanahu wa ta'aala wuu awoodaa waxa ku duceysataa ducadan ku duceyso walaashayda qaaska walaashayda maanta videogan qaaska aan u istaagay adiga xanuunka iyo dhibaatada iyo kaliya iyo garab la'aanta kugu dhacday tabcan maanta qofta oo kaliya kula dareemi karto waa aniga laano waa soo maray walaashay marka walaashayda macaanto awwal shay waxaad ku duceysanay ducadan Allahumma ajurni musibati wakhlufni minha khayra ducadan waxaa ku duceysatay saxaabiyaasha rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabi kamid ah markuu dhintay ayaa xaaskiisa ku duceysatay marka maxaa dhacday mataqaanaa ducadeeda Allah waa u aqbalay ninkeeda waxaa ilaahay ugu bedelay nin ka fadli badan ka khayr badan yoo ahaa ninkaas rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam subxaanallah adigana walaalay ku duceyso ducadan waxaa laga yaabaa booska meesha oo ka baxay mid ka wanaagsan inuu ilaahay kugu bedelo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa awoodaa taas waa awoodiisa kow midda kalena aan usoo noqonayo lagu cidleeyay garab la'aan kugu dhacday wax garabka adduunyada waxaa ugu xun hal shay ugu xun markaa fiican tahay dadka kula dhaqmaayo kula qoslaayo kula cunaayo kula yeelayo isla soconaysin isla bixaysin isla qoslaysin isla dheelaysin laakiin maalinta amase shay ashidda alxayaa maalintaas inaa wax garabkaaga istaago in aa wayso laakiin
taas ma aha mid oo nolosha meesha ku ag tahay, ma aha daciifnimo, waxaa laga qaadaa geesinimo iyo adkaan iyo wax aa weligaad aad ahayn ayaad naqanaysaa, lugahaaga ayaa ku istaagaysaa. maanta waxaad tahay, waxaad ogaatay wax badan, waxa kugu dhacay. marka waxyaabahaas kugu dhaco waxaa la rabaa in cashar laga baxsano, in aad daciifin, geesi. kelinimada iyo garab la-aanta waxaa laga qaadaa geesi, in aad madaxaada kor aa u qaado, qadarta ilaahay inaad dhahdo shukr alxamdu, haddaan allah asii haddana allah iga qaaday, alxamdulilah. lagu qanco awood allah, alxamdulilah. maanta waxaad ogaatay dad iyo duunya waxay galaan. horta sidiisaba qofka bini'aadinka, dadka bini'aadinka goormee la bartaa? maalinta maxtaajka aad tahay, maalinta aad garab u baahan tahay, aad wayso wax ku garab istaago, maalinta aad wax ugu baahan tahay, aa wayso wax, maalintaas dadka dhan kala yaacan oo qof oo garabkaa istaagay aa wayso. maalintaas ayaa dadka la bartaa. qofku casiis maalintaasaa garabkaaga u istaagsa, maalintaasaa arkaysaa inuu hortaada istaagnaanayo. qofka sadiiqa oo xaqiiqi, sadiiq wafi oo sadiiq oo saaxiib oo daacadnimo oo yacni ruux aad tihiin, waxaa la ogaanaa maalintaas ayaamul shida, ayaamul mixna, waxaana qofkaas garabkaaga uu taagnaanaa. inta kale waa kala yaacayaan. marka maanta zamzame, maanta waa ogaatay sadiiqa oo wafi oo maanta garabkaaga istaagay, adaa u koray, anaga meesha kulama joogno. dhibaato walbo wax baa laga barta, casharaa laga barta. hadda koley adiga walaasheeda cashar waa baratay, dad waa baratay, cashar ha ku ahaato, cashar ka baxso. ilaahay sabr iyo iimaan allah kaa siiyo. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. kullu nafsin daa'iqatul mowt, dhammaanteena waa socona. laa taxzani, ha ciishoonin, hana ciiloonin, madaxaanan dhulka gelinin, kor u qaad. allah subxaana wa tacaala weydiiso. kullu mar walba aa u baahatid garab iyo dad iyo caawinaad aa u baahatid, yaa allah ii caawi dheh, yaa allah ii gargaar dheh, yaa allah mixnada iga bixi dheh. allah subxaana wa tacaala waa qafuur raxiim waay. wax noogu dhow allah subxaana wa tacaala, wax noogu dhow ma jiro, asigaa degdeg kuugu ajiibaay. marka madaxaada kor u qaad, geesi noqo, nolosha meeshayay kugu istaagin, hore u soco. insha allah waxaan kuu rajaynaa guul iyo gawanimo ayaan kuu rajaynaa, insha allah biidnillah. inta cumrigaa ka dhiman yahay aad ayaan kuu salaamayaa. asalaamu calaykum.